subax wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan oo diyaar garooba idaacadeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka sirta wararka iyo calinka news waa khamiis taariikhdu waxay ku beegantahay 20 Janaayo sanadkan 2022 idaacadeena saaxiibayaal macluumaadada ugu waaweyn warkeena aad ku daawo doontaan waxa qaybka maxaa ka dhaxeeya khilaafka farmaajo Rooble iyo qaraxyada ku soo kordhay magaalada Muqdisho tani markuu dhacay khilaafka farmaajo Rooble qaraxyada ugu badnaa caasimada ka dhacay hadaba waxa ka dhaxeeya khilaafka farmaajo Rooble iyo sababta ay sii kordhayeen qaraxyada ayaan macluumaad cusub saaxiibayaal idinkaga haya yaa ku soo baxay shantii kursi ee baarlamaanka Soomaaliya ee shalay doorashadooda ka dhacday Baydhabo siday u kala heleen qabaa'ilada deegaanka Koonfur Galbeed iyo magacyada iyo qabiilada ku soo baxay kuraastaasi sidee loogu falceliyay in mar kale villa Soomaaliya lagu arko sawirka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cadde falcelin durba ka dhalatay ayaan idin soo gudbin doonaa Jarnaal Xuud oo shaaciyo qorshe aan hore loo ogeyn oo u yimid magaalada Muqdisho maxaa ka jira qorshaha aan hore loo ogeyn ee jarnaalku u soo gaaray Muqdisho macluumaad cusub ayaan idin haynaa saaxiib ilaalintaasi ku saabsan Axmed Madoobe muku abaal dhacay Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo dagaal culus u galay doorashadiisii 2019 hadaba warbixin ayaan kaga hayaa Axmed Madoobe iyo sida ugu falcelin doono labadii madaxweyne ee garab istaagtay doorashadiisii markaas oo sanadiidmo xoog la kala kulmayay iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo shaaciyay jadwalka kuraas cusub oo doorashadu ay qabanayaan qodobadani kuba kala muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa idaacadeena qayb ka noqo saaxiibada ku xidhay channelkeena subscribe noo dhigam balaalkeena taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena subaxnimo saaxiibayaal soo dhawaada mar kale aan ku bilaabaysan maxaa ka dhaxeeya qaraxyada ka dhacay caasimada Soomaaliya Muqdisho iyo khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha tani markii khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu xoogeysay caasimada waxa ka dhacay qaraxyo badan oo si lama filaan ah oo caasimada kaga dhacay doodo u muuqda inay kuwa xaaladda kaga sii dari kara ayaa la baafinaya qaar ka mid siyaasiyiinta Soomaalida iyo jamaahiirta caasimada ku nool caasimada 2 ugu dambeysay waxay martigelisay qaraxyada ugu badnaa oo ka dhacay Muqdisho oo ay dad badan ay ku dhinteen afar qarax oo ugu dambeysay Muqdisho ka dhacay ayaa dhammaanba waxa loo ekeysiyay kuwa xambaarsan dana siyaasadeed marka loo eego qaraxyadaas iyo qababka u dhaceen iyo khilaafka madaxda sare qaraxi lagu beegsado Allah u naxariistay agaasimihii Radio Muqdisho Cabdi Afrika oo dhacay 22 October waa qaraxaas oo dhacay bishii November iyo qarax kale oo ka dhacay wadada 22 October oo waliba kii ugu dambeeyay ee la eegtay afayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macalimo oo isna ka dhacay meel u dhow isgoodka shaqaalaha ayaa dhammaanba la sheegay inay ahayeen kuwa ay ka dambeeyeen dana siyaasadeed iyo xurgufta madaxda qaranka oo loo eegayo inuu lug lahaa qaraxyadaasi sida ay ku waramayaan dadka taxliiliya siyaasadda tuunka marka laga soo tago waxa jira dad siyaasiyiin ah oo fagaariyaasha hadalka la soo istaagay in ay xaaladda tani kaga sii dari karto marka loo eego beegsiga saaxiibada ugu dhadhow ra'iisul wasaaruhu lagu hayo kuwaas oo qaarkood u rogay waji siyaasadeed marka loo eego inta qof ee qaraxyada caasimada lagu beegsaday hadaba dooda aan wali dhicin ma la oran karaa tani waa macquul inay tahay in arrimo siyaasadeed ay ku lug leeyihiin qaraxyada ka dhacay caasimada iyo si gaar loo bartilmaameysanayo dadka u dhadhow ra'iisul wasaaraha waxaa hadda aad loo hadalhayaa in qaar ka mid saraakiisha hore ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa hadda joogaba ay si weyn u taxliilinayaan ciidda fududeysay qaraxyada iyo waliba shakhsiyaadka naftahaliyaasha ay sida tooska u bartilmaameeysanayaan mas'uuliyiinta ra'iisul wasaaraha ee dhanka meediyaha u qaabilsan dibka ugu weyn ayaa la soo sheegay inay tahay in si weyn loo bartilmaameeysay saaxiibada ugu dhadhow ra'iisul wasaaraha iyadoo jirta feejignaan ciidamada amniga la kordhiyay laakiin waxa wararka ay sheegeen in tani ay kaga sii dari karto hadiiba amniga la siyaasadeeyo ay keeni karto arrimo intaan ka halis badan waxa la isku raacay in hadda qaraxyada yihiin kuwa siyaasadeysan al-shabaabna loogu faa'iideynayo marka loo eego qaraxyada ay geysanayaan mid waa macquul waa in jiri kartaa in dawladda waa in xubno ku dhow dawladda iyo waliba kooxda al-shabaab ay isku milmeen sida ay qabaan dadka oo darasa arrimaha ammaanka laakiin taasi ma badna sida la sheegayo waxaa la sheegay in loogu sii dari karo xaaladdan haddii sidaan loo sii faafiyo in saaxiibada farmaajo iyo Rooble ay dhinacyadan ay adeegsadaan dhanka amniga siyaasadda u xubsiibato ay dadka xildhibaanayaashu ay qabaan in xaaladdu caasimada kaga sii dari karto marka loo eego qaraxyada iyo waliba sidoo kale in la beegsado xubnaha saaxiibada ah
dad badan waxay qabaan qaraxyada ismiidaaminta iyo xurgufta madaxda sare ee dalka u dhaxaysa inaysan wax shaqo ah isku lahayn halka kuwa qaarkoodna ay isku dareen haddii qaraxyadan ay ahaan lahaayeen kuwa miinooyin ama kuwa gaari lagu dhijiyo ama weerar toos ah waxaa la oran lahaa waxay ahaayeen kuwa tixano ah oo dhici jiray laakiin in jaakada qaraxyaa in weliba in mas-uul si toos loo bartilmaameysado ayay ku qeexeen dadka qaarkood shirqool siyaasadeed xilliga doorashada iyo amniga doorka doorashada iyo weliba dhanka amniga Soomaaliya marka loo fiiriyo wax isku mid ah sida ay qabaan xilliyaasha marka la gaaro waqti doorasho waxa inta badan la qabaa inay jiri karaan xurguf siyaasadeed iyo weliba sidoo kale shirqoolo dhinacyadu ay adeegsanayaan waxa aad u yaraaday weerarada qaraxyada iyo dagaaladii tooska al-shabaab ay ka geysan jireen caasimada taa beddelkeeda al-shabaab ayaa u xiibsiibtay fulinta weerar qaraxyo ah oo qof nool qaraxyo lagu soo xirayo jaakadaha qaraxyada iyo suumaha ka samaysan waxaana sii kordhaya bartilmaameedka xubno badan oo mas'uuliyiin ah taas oo dadka qaarkood walwal xoog leh ku abuuray in la siyaasadayo amniga oo ayaa waxa ay dadka qaar ku micnayeen halis kala weyn oo laga yaabo xitaa in xubnaha kooxda al-shabaab loo fududeeyo weerarada iyo beegsiga ay rabaan in magaalada ay ka geystaan dhinaca kalena warbixinadeena kale haddii aan ku sii socno arrimaha doorashooyinka yaa ku soo baxay shantii kursi ee baarlamaanka Soomaaliya ee shalay doorashadooda ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed waxa lagu qabtay doorashada 5 kursi oo kamid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuraastaasi la qabtay doorashadooda waxa ku soo baxay xildhibaano hore oo badankood kuraastooda ku fadhiyo kuwaas oo difaacday kuwa cusub way ku yar yihiin kursiga koobaad hob 184 waxa ku tartamay laba musharax oo kala Xasan Cabdi Nuur Axmed iyo sidoo kale musharax lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Cali waxaana kursigan ku soo baxay Xasan Cabdi Nuur oo wasiirka biyaha iyo tamarta Xasan Cabdi Nuur hadda wuxuu yahay wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha waxaanu helay codad gaaray 72 cod halka musharaxa kale oo loo arkay mid balxiisa uu helay 27 cod kursiga labaad wuxuu ahaa hob 85 waxa ku tartamay Shariif Maxamed Cabdalla oo hore kursigan ugu fadhiyay waxaas la tartamay Maxamed Xuseen Mukhtaar waxaas markale kursigaasi ku soo baxay Shariif Cabdalla oo u muuqday mid kursigiisa loo xiray Shariif Cabdalla waxa uu helay 79 cod halka kii la tartamay oo helay 19 cod oo kaliya kursiga saddexaad hob 176 waxa kursigan ku tartamay Maxamed Mursal Maxamuud Baroobe waxa la tartamay Cabdixakiin Mustafa Ibrahim waxa ku guuleysay Maxamed Baroobe oo hore kursigan ugu fadhiyay sida uu sheegay gudoomiyaha Maxamed Mursal Maxamuud Baroobe waxa uu helay codad gaaraya 73 cod halka qofka kale uu helay 26 cod waxa u muuqata Masar Baroobe kursigiisa in loo xiray kursiga afraad wuxuu ahaa hob 46 waxa hore ugu fadhiyay Rabaaco Sheekh Nuur waxa la tartamay Maxamed Wardheere Cabdi waxa ku soo baxay Cabdullaahi Samow Cusmaan ayaa dhamaantood baa dadkii tartamay waxa Maxamed Wardheere Cabdi oo helay codad gaariya 87 cod halka Cabdullaahi Samowne oo helay 12 cod waxa muuqatan kursigaas isbedel ku dhacay kursiga shanaad wuxuu ahaa hob 156 waxa ugu dambeyn kursigan doorashadiisa ku soo baxay Maxamed Aadan Maxamed waxa la tartamay Maxamed Ibrahim Isaaq waxa ku guuleysay Maxamed Aadan isbedel ayaa kursigaasi ku dhacay Maxamed Aadan oo ku guuleysay kursigan waxa uu helay codad gaaraya 88 cod halka Masar Isaaq uu helay 10 cod oo kaliya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa noqonay maamulkii ugu horeeyay ee qabta doorashada xildhibaanada baarlamaanka doorashadan ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo 25 Febraayo sida ay dalbadeen wakiilada beesha caalamka arrimaha doorashooyinka intaan ka bixin Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa isla xalay waxay shaaciyeen jadwal kuraas cusub oo la dooranaya guddiga doorashada Jubbaland waxay soo saareen jadwalka 3 kursi oo kamid ah doorashadooda ay ka dhici doonto magaalada Kismaayo saddexdaas kursi ayaa kala ah hob 126 hob 118 hob 127 sida ku xusan warqada ka soo baxday guddiga doorashada kuraastan waxa ku kala fadhiya Maxamed Aadan Idris Garey Masar Garey ma badna rajadiisa inuu ku soo bixi doono kursigan isbedel ayaa ku dhacay kursiga Garey oo ah hob 126 waxa uu ahaa kursi ay hore ugu heshiyeen madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen waxaana kursigan la siiyay shakhsi oo wata Laftagareen waxayna u badan tahay inuu soo qaadan doono wasiirkiisa gaadiidka Xasan Eelay Masar Maxamed Xasan Idris Garey wuxuu ahaa shakhsi suwan Axmed Madoobe 4 sano ugu weyn ee difaacay laakiin kursigiisa hadda isbedel ayaa ku dhacay kursiga kale wuxuu ahaa 118 hob waxa ku fadhiya
Saqawir Ibrahim Abdallah waxaase uu yahay kursigan mid asna isbedel ku dhici kara kursiga kale waa hob 127 waxa ku fadhiya Cali Cismaan Xiirey Masir Xiirey ma badna rajadiisa marka loo eego gudiga ayaa sidoo kale ku dhawaaqay doorashada 3 xubnood oo ay dhici doonto 26 bisha Janaayo oo ku beegan maalinta Arbacada ee soo socota dhinaca kale gudiga doorashada Koonfur Galbeed ayaa ina shaaciyay jadwalka doorashada 3 kursi oo kamid ah kuraasta taala Koonfur Galbeed kuraastaas la shaaciyay waxay kaliin hob 56 oo ku fadhiyo Maxamed Jaamac Mursal iyo hob eber labo oo ku fadhiya Cabdullaahi Sheekh Maxamuud iyo hob 231 oo ku fadhiyo Maxamuud Macalin Yaxye dhammaan saddexdan kursi idin soo sheegnay waxay u badan tahay in mar kale boosaskooda ku soo noqon doonaan maadaama yihiin taageerayaasha farmaajo sidoo kale gudiga ayaa jadwalka ay soo saareen doorashada waxay sheegeen 25 bisha Janaayo ay qaban doonaan doorashada Koonfur Galbeed ayaa shalay soo saartay 5 xubnood iyadoo sidoo kalena isla toddobaadkan 5 xubnood kale ay qaban doonaan dhinaca kale Axmed Madoobe muku abaaldhici doona Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed marka loo eego doorashada hadda socota doorashada Soomaaliya ayaa si toos ah hadda loo gudgalay musharaxiinta xilka madaxweynaha ayaana si toos ah u ayaa bilaabay ololahooda dhanka doorashada xukun raadinta maamulada qaar waxa ay diyaar u yihiin in 100% kaarkooda ay saartaan oo ay soo dhisaan madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday farmaajo inta la og yahay marka laga reebo Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo wax gacan saar ah la lahayn farmaajo mucaaradka xamar jooga waxay waqti dheer rajeynayeen codadkooda inay ka heli doonaan labada maamul Puntland iyo Jubbaland ay codad fiican ka heli karaan marka loo eego waqtiga doorashada marka la gaaro laakiin meel dhexe oo aysan filin waxa kaga soo baxay Saciid Cabdullaahi Dani oo la aaminsan inuu yahay musharax madaxweyne oo qarsoon kaas oo hadda isku haysta inuu yahay ninka ugu fursada fiican dhammaan musharaxiinta kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa rajeynaya in codadka musharaxiinta mucaaradka ay raadinayeen in xaqiisa ay soo maraan oo codad badan uu helo asagoo ku tasharaya 37 kursi oo ka imaan doonta Puntland oo asagoo maamulayo si lamida kuraas ka imaan doonta Jubbaland waxa hore Jubbaland waxa soo haray Jubbaland farmaajo waxa u taala 16 kursi oo Garbaharey uu rabo inuu ku dagaalamo codadkoodana uu ku xisaabtamo kuraasta taalasa Kismaayo waxay u muuqataa mid gacanta farmaajisan ku jirin oo mucaaradku ay rajeynayaan laakiin Axmed Madoobe oo Muqdisho kaga qayb galay shirka golaha wadatashiga qaran ayaa la kulmay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuuna si toos ah ugu sheegay inuu soo dhisi doono Saciid Cabdullaahi Dani asagoo raali gelin buuxa siiyay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ka raali geliyay waxyaabaha dhacay Axmed Madoobe waxa uu sheegay in Saciid Dani uu ku leeyahay abaal badan oo siyaasadeed Axmed Madoobe waxa uu soo dhisi doonaa doorashadan si muran la'aan ah Axmed wax waqti badan gelin doona sidoo soo bixi lahaa Saciid Cabdullaahi Dani Axmed inuu soo dhiso Saciid Dani waxa lagu qiyaasaa inay tahay asagoo abaal weyn u haya sidoo kale Saciid Dani uu garab istaagay waqtiga adkaa ee loolanka loo galay iyo aqoonsiga loo diiday Jubbaland in ictiraaf siyaasadeed dawladdu ay ka hesho waxay ahayd 2 sano ka hor markii Axmed Madoobe oo aqoonsi ka diiday dawladda federaalka sidoo kale xitaa la diiday Cali Masaarkiisa in laga qayb galo laakiin markaas xafladda Cali Masaarkiisa waxa isku xil saaray inay aadaan madaxweynayaashii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh oo kuwaas oo xitaa diyaaradii laga soo celiyay Saciid Dani wuxuu ahaa dhankiisa maamul goboleedka maamul goboleedka kaliya ee taageeray xafladda Cali Masaarka Saciid Dani aaday laakiin maamul goboleedyada kale ma aqoonsaneen oo waa ay diideen mana ka jawaabin casuumaadii u soo diray Axmed Madoobe wuxuu markaas u baahnaa madax qaran oo la garab istaagta wuxuuna markaas helay labadii madaxweyne ee hore ee Soomaaliya ay gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare iyo dhammaanba xubnaha mucaaradka oo isku duubay Axmed Madoobe ee garab istaagaan oo ay ka qayb galeen munaasabada Cali Masaarka qaarkood halis duulimaad ayay la kulmeen balse ugu dambeyn way ku guuleysteen in Axmed Madoobe oo ay noloshiisa dib u soo celiyaan oo ay madaxweyne sharci ah ka dhigaan oo ay garab istaagaan maadaama dawladda federaalka xilligaasi ay go'doomin weyn ay gelisay madaxdii heer federaal ee u dagaalantay aqoonsiga Axmed Madoobe maanta dhamaantoodba albaabada ayuu ka soo xirtay Axmed Madoobe wuxuuna ka durbiday Saciid Dani oo kaliya in abaal u gudo dooda mangalka ah in Saciid Dani uu garab istaago Axmed Madoobe ayaa waxa lagu sheegay inay tahay mid Axmed Madoobe uu xaq u lahaa
laakiin waxay heday inuu fiiriyo dareenka labadii madaxweyne ee hore oo xitaa nafsadooda halis u geliyay lama yaqaan maanta waxay dareemayaan xubnihii shalay ee nafsadooda halista u geliyay Axmed Madoobe ee difaacay xilligii doorashada ayna garab istaageen xubnahaas waxaa kamid ah madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdikariin Xuseen Guulad oo qodiisa Nairobi kaga yimid Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa qayb ka Axmed Madoobe sida muuqata Saciidani qurah ayuu hadda abaal u gud u sameynaya doorashadiisa waana cashir siyaasadeed ay ka baran doonaan xubnaha mucaaradka ee Muqdisho jooga waxa quray arintan laga baran kara ayaa siyaasiyiinta reer Muqdisho ka soo jeeda inay akhriyaan oo ay dareemaan dhaqdhaqaaqa Saciidani Axmed Madoobe inkastoo aan la aqoon codadka xildhibaanada sida loo maareyn doono haddana laakiin Axmed Madoobe wuxuu rajo weyn ka qabaa inuu soo dhiso saaxiibkiisii Saciid Cabdullaahi Dani dhinaca kale sidee loogu falceliyay in mar kale in villa Soomaaliya lagu arko sawirka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cadde munaasabad kooban oo maanta ka qabsoontay madaxtooyada Soomaaliya waxaa mar kale ka soo muuqday sawirka madaxweynihii koowaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cismaan laakiin shaki badan ayaa ka dhashay in laga fujiyay sawirka madaxweynihii hore ee madaxtooyada bogga Facebook ee villa Soomaaliya ayaa la soo dhigay sawirka madaxweynaadkiisu dhamaaday farmaajo warqadaha aqoonsi ka gudoomaya danjiraha ee safiirka cusub ee dawladda boqortooyada Sacuudi Carabiya Ahmed bin Mohammed Al Thani kaas oo la arkay sawirka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cadde oo darbiga ku dhigan dood adag ayaa hore u kaga dhalatay markii farmaajo madaxweynaadkiisu dhamaaday uu warbaahinta ka soo hormuuqday shirarkii jireed uu qabanaya isagoo oo gadaashiisana laga waayay sawirka madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Aadan Cadde siyaasiyiinta xilligaasi ayaa ka hadashay arintan waxaana kamid ah wasiirkii hore ee amniga Galmudug asagoo sheegay in tani ay tahay farmaajo mid kale oo sii lumiyay shacbiyadiisii qaar kamid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa si weyn ugu maadistay farmaajo in sawirka Aadan Cadde uu ka fujiyo villa Soomaaliya laakiin mar kale ayaa la arkay sawirka asagoo dhagan oo ka soo muuqda farmaajo ayaa markii hore ku doodayay in dawladnimada asagoo soo nooleeyay sidoo kale uu nin ku dayda Aadan Cadde si kastaba sawirkan ayaa qayb ka madaxtooyada Soomaaliya ka soo muuqday xilli dhawaan khudbada u jeediyay farmaajo lagu waayay dhammaan sawirkaasi bogga madaxtooyada ugu dambeynna General Xuud waxa uu shaaciyay qorshe aan la ogeyn oo Muqdisho u yimid General Abuukar Xaaji Warsame oo hogaamiyaha jabhadda aasaaska gobolka Hiiraan oo shalay la keenay magaalada Muqdisho iyadoo diyaarad lagu soo qaaday magaalada Beledweyne ee xarunta magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan mar uu la hadlay warbaahinta ayuu sheegay inuu u tanaasulay qarannimada Soomaaliya asagoo ka baxay in dalka burbur la geliyo sidoo kale General Xuud ayaa sheegay in cashiro dadka Soomaaliyeed ay ka barteen waxyaabaha la soo bartay taasina ay keentay in dawladnimada Soomaaliya hadda la xoojiyo waxa uu sheegay in Muqdisho u yimid sidii loo badbaadin lahaa dawladnimada Soomaaliya asagoo mar kale sheegay inuu isku hawlayo sidii dalka Soomaaliya sare loogu qaadi lahaa waxa uu la kulmay farmaajo ilaa xogtan aan keenaysa waxay noo sheegeen in farmaajo waxyaabaha ugu weyn General Xuud oo kala hadlay ay qayb ka ahayd sidii kursigiisa xildhibaannimo asaga loo sii lahaa uuna ka shaqeynayo in jabhadda halkaasi joogto ciidanka loogu diro dhamaanba dhinacyada ayaa ku heshiyay in jabhadiisa la ciidameeyo oo ciidamada qaranka loogu diro asagana xildhibaannimo uu soo qaato 25 kursi Beledweyne taalan doorashadooda halkaas lagu qabto taasoo keeni karta in Cali Guudlaabe loo ogolaado in magaaladaas uu tago uu doorasho qabto ilaa xogtan aan ka soo xiginay waxay noo sheegeen in ujeedka ugu weyn ee farmaajo waqtiga u geli arintan ay tahay asagoo raba 25 kursi ay tala Beledweyne oo ku jiro kursiga Fahad Yaasiin iyo sidoo kursigaas u heli lahaa Fahad doorashadiisu waxay taalaa Beledweyne wuxuu walwal ka qabeen kuraasas loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho haddii kuraasas loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho waxay aad u adag in Fahad Yaasiin uu ku soo baxo kursigiisa xildhibaannimo laakiin Beledweyne wuxuu u arkaa Fahad mid fursad weyn asaga u ah maadaama Fahad halkaas uu geysan karo ciidamo fara badan uuna rabo in uu awood muuqata uu ku soo saarto kursigiisa xildhibaannimo وهاجاك صاحب يالس واحد من أكثر والبحين دين السوحنمية يعني هالكاس يكسر كوبينا قد بدن يا أجوا وين قد بدن وحي سكر ده إذا عدينا قلبنا ما يعني نجح حسوسنا صاحب يال وحول بوا وكوس عبصر حالات ده دلك كجيت عاصمة الصومالية مقدشة مع الدروشين كأمني جاه قرية ده وعاصمة ده مال معهم بكوس كرة معلومات والبوا سكر لا يوجد دق يعني كوس ضاوي عدنا إن آلدينا للضاوده يوتيوب كا وكم عصمت الضاوشة ده وركينا عدي عدوني سنة وركينا نات كسر أريك تدي بتقاف تهوسي كومنتي
commentiga ayaad aragtidiina nagula wadaagi kartaan sidoo kalena WhatsApp-ka gaarka ah wararkeena ayaad nagu soo diri kartaan wixii aragti iyo fikir ah oo aad qabtaan ku saabsan xaaladda Soomaaliya waagaag saaxiibayaal subax wanaagsan warkal mid labada intaan ku kulmi doono waa bahda hooyiga wararka oo idin leh maalin wanaagsan nabadgelyo